kusoo dhawaada waa macalinka nolosha. Dhaqaalaha ama lacagtu waa muhiim marka ay noqoto day to day nolosha wax walba ooga baahannahay. Waa inaad ogaataa lacagtu waxa kaliya ay tarto waa inaad waxa aad rabto inaad hesho inaad ku gaari karto oo kaliya. Lacagtu haddaad hadda lacag haysanin maanta isbitaalka haddaad jirato ma aadi kartid. Cunugaaga hadduu kaba ama dhar u baahdo ma u gadi kartid. Haddii gaajo ku qabato cunto ma cuni kartid lacag la'aanteed. Waa inaad ogaataa lacagtu waa lagama maarmaan nolosha markay noqoto. Su-aashu waxa weeye lacagtu maxay tari kartaa iyo maxayse tari karin. Intaas haddaad kala fahanto nolosha horumar baad ka gaartay. Qiimaha lacagtu leedahana waad ogaatay. Markaad wax u baahato aad naftaadu jeceshahay waad soo gadi kartaa. Marka ilmahaagu wax u baahdaan aad u soo gado jeclaato waad soo gadi kartaa. Laakiin lacagtu waxyaabo badan aysan goynaa jira. Lacagtu caafimaad tagay ma soo iibi karto. Lacagtu jacayl ma abuuri karto. Laakiin qofku jecel kuma iibi karto lacagtu. Laakiin dad badan oo lacagtaada kugu raaca waad arki doontaa. Laakiin jacayl lacagtu ma iibi karto. Taas waa mid. Waxyaabo badan oo waxa jira nolosheenna ay lacagtu goy karin. Waxaa ka mid ah dulqaadka. Waxaa ka mid ah jacaylka. 5 qof oo ka hesho waa laga yaabaa inay jirto. 5toodaas laakiin ay lacag darteed kugula joogaan ama ay kaaga helaan. Maalinkii lacagtu meeshaas ka baxdo ayaad waxa ogaa doontaa jacaylka dhabta ah kan lacagtu gado ma ahan. Waqtigay qaadataba waad ogaan. Lacagtu ma gado dulqaadka. Lacagtu ma gado waqti. Lacagtu ma gado jacayl. Lacagtu ma gado dadnimada. Lacagtu ma gado aqoonta. Lacagtu akhlaaqda iyo edebta ma gado. Lacagtu diin ma gado. Lacagtu waxa ay gadaa oo kaliya waa wax yar oo kooban oo maalmeedka ah. Lacagtu waxay tartaa waxa ogaa kare oo kaliya dadka doqoshinka ah ama dadka waaweyn oo nolosha wax badan soo ogaaday. Aniga islaan 80 jir oo hadda ka hor la kulmaya waxay igu tiri lacag waa haystaa laakiin caafimaad ma jiro. Ilmo ma jiraan. Dad ma jiro. Laakiin gaariga ugu qurxoon magaalada maanta waan haystaa. Lugaha waa ka go'anahay. Ninkayguna waa curyaan. Anigana lugahan ka go'anahay. 80 sanaan jiraa. Ma soco karo. Lacagna waa ii buuxdaa. Lacagtu marka waqti aysan waxba tarinaa jirta iyo waqti ay wax tarto. Waqtigii aysan lacagtu waxba taraynin aysan qiimaha lahayna lagu jiraa. Haddaad 80 gaarto ama 70 jirto oo 100 milyan bangiga ku jirto maxay ku taraysaa? Ilmihii uu dhalay ayaa isku dagaalaya asagoo wali nool ayaa ilmihii uu dhalay guryihii iyo hantidii isku dagaalayaan iyo lacagtii. Maxaad ka malaynaysaa markuu dhinto? Lacagtu jacayl iyo dadnimo iyo ilmo ma keento. Dadaan Ilaahay ilmo siino waxa jira ugu talagelin inay ilmo helaan oo meel walba inta galay lacag ku keeni waayey. Lacagta ha ka dhiganin waxa kaliya oo farxadaada keena. Lacagtu waxa aad rabto inaad gadato bas ay kuu fududaynaysaa. Laakiin farxad ma keento lacagtu. Waxaa jira dadka milyaneerada ah oo adduunka ugu lacagta badan markay lacagtii ay rabeen ay gaareen ama ay ka dhargeen ay ogaadeen waxyaabo aysan lacagtu beeci karin aysan lacagtu goynin. Waxyaabo lagu yiraahdo qiimo ma laha. Dukaanka inta la geeyo 10,000 ama $10 laguma dhaji karo. Xaggan waxaan kusoo koobaynaa waxyaabaha aan noloshaada aysan lacagtu beeci karin oo kooban. Si walba ood lacag low u tahay ama bilyaneer u tahay ama milyaneer u tahay waqti ma beeci kartid. Waqti ma soo celi kartid. Waqti taga waa tagay. Kan soo socda bas aad ku noolaa kartaa. Laakiin waqti la soo dhaafay lacag kuma bixi kartid. taas waa marka waxa lagu leeyahay waqtigaaga ka faa'iideyso. Lacagtu ma soo celi karto waqtiga. Waxyaabaha aad jeceshahay oo naftaada ku faraxsantahay sameey. Lacagtuna waqti ma gado. Lacagu waqti ma goyso. Midda labaad waa jacayl. Waxaa la sheegaa dadka lacagta leh inaysan helin wax jeclaada. Sababtu waxa waaye qof walba oo noloshooda ku soo biiro waxa uu ka faa'iidayaa dhaqaalaha ama hantida oo haysta ayuu fiirinayaa ee dareenka iyo bini'aadanimada qofkaas ma uu fiirinayo. Qof walba danoo u jooga. Dantaas maalinkii qofkaas lacagta lehna wuxuu ogaadaa maalinkii lacagta oo haysto dhan oo waayo ayuu ogaanayaa. Dadkii la joogo dhan waxay ula joogeen lacag darteed. Lacagtu ma gado runta. Waxyaabo badanood qalado ama beenaad sheegto waad iska daba wareeji kartaa. Dhaqaale waad ku bixi kartaa. Laakiin maalmaha ka mida markaad dhimato ama lacagtu kaa dhamaato runtu way soo baxaysaa. Lacagtu runta ma gadi karto. Runta waa wax qalbiga ka soo go'a oo laga sheeko. Familiga ama caa'iladaada dadka kula dhashay dadka aad dhashay lacagu ma goyso.
lacaguma goy karto familiga ama caa'ilada ama dadka kula dhashay ama kuwa aad dhashaba ama kuwa ku dhalayba. waa waxa keliya oodan dooranin markii aad helaysay ooda inta baxda suuqa aada ka soo gadin. inta dukaan tagtay ma dhihi kartid walaashay waxaan rabaa nuucan inay noqoto, walaalka inuu nuucan noqdo. ilaahay baa kuu doortay, nimco ilaahay weeye. ilma aad dhashana waa nimco ilaahay ku siiyey, ma ahan inaad suuqa inta tagto soo beecsan karto. familigu waa waxyaabaha aysan lacagtu goynin ee la soco. lacaguma goyso saaxiibtinimada runta ah. qofka saaxiibka oo runta ah waqti walbo lagu jiro iyo duruuf walbo lagu jiro dhinacaaga ayuu joogaa. laakiin saaxiibada beenta ah waqtiga lacagtu dhammaato ama duruufuhu dhammaadaan ama dantu dhammaato waa ku kala tegaysaan. laakiin saaxiibka runta ah eber wuu kula joogayaa. lacaguma goyso saaxiibtinimada runta ah. dad waxaa laga yaabaa lacagtaada darteed saaxiibba kuula ah, casho la isku raaco, meel la aado, kadib markii lacagtaadu dhammaatana meelay ka baxeen aad weynaysid. geesaa inta fiirisaa where are you aad dhihi doontaa. sababtana waxaa keenay waxa saaxiibtinimadiina waxay ku dhisneed lacag ee kuma dhisnayn dareen walaaltinimo. waxyaabaha kale aysan lacagtu gedi karin waxa waaye talentiga ama aqoonta ama xirfadda ama waxyaabaha ilaahay kuu fududeeyey. qof yaqaana sida guryaha loo dhiso, qof yaqaana sida loo hadlo, qof yaqaana sida wax loo qoro, qof yaqaana sida familiga ama dadka loo caawiyo, qof yaqaana sida jikada ama cuntada loo kariyo, qof yaqaana sida qof walba waxaa ilaahay u fududeeyey. waxyaabahaas lacaguma gato. waxaa laga yaabaa maanta inaad barato sida harqaanka loo sameeyo inta iskuul inta tagtid lacag ku bixisay baratay laakiin aan kuu fududayn. laakiin waxyaaba waxaa jira haybad ilaahay kuu siiyey laakiin aadan lacag ka bixin aadnana baranin. lacagtu marka ma goyso haybadda ama waxyaabaha ilaahay kuu fududeeyey. lacagtu ma beeciso qiimaha bini'aadanimada. dukaan inta tagta kabaha ugu qaalisan, dharka ugu qaalisan, saacadda ugu qaalisan waa soo gadan kartaa, waa lagu wada fiirin. laakiin dadnimadaada iyo qalbigaaga wanaagsan lacaguma gado. adoo hoos faaruq ka ah korka wax waad ka gashan kartaa, laakiin lacagtu ma gadi karto dadnimo. naftaada qiimaheeda lacaguma goydo. taasna waxaa waaye kabaha ugu qaalisan, saacadda ugu qaalisan, shaatiga ugu qaalisan waad gashan kartaa maanta, laakiin qiimahaaga naftaada iyo miisaanka naftaada ku fadhiso lacaguma goyso. jidka markaa soo marto dadka dhan inta ku wada fiiriyaan maasha allah way dhahayaan, laakiin adigu waad is ogtahay qiimaha naftaadu leedahay. haddii qiimaha naftaadu leedahay uusan badnayn lacaguma bedeli karto. dharka aa wadatana qiimo aada lahayn kuuma uu yeelayo ogow. ugu dambeyn lacagtu ma keento nabad. nabaddu waa qalbiga wax laga dareema iyo maskaxda, ma ahan wax lacagu keento. guri, gaari, saacad, dhar, wax walba lacag waa ku gadi kartaa, laakiin nabadda iyo xasiloonida lacag kuma gadi kartid. dadka biniaadanka waxaa la sheegay badankooda waqtigooda dhallinyaranimadooda dhan inay ku dhammeeyeen dhaqaale raadis iyo shaqaale inay ahaadaan ama inay lacag raadiyaan. waqtigooda dambe cumrigooda inta ka midana inay ku dhammeeyaan lacagtii ay shaqeeyeen inay dib cirbad ahaan u qaataan iyo daawo ahaan. taasna waa xisaabaha qaldan ee lacagta laga fahansan yahay. lacagtu caafimaad ma keento, mana ku siiso caafimaad. cudurku hayana kaama qaadi karto. ee marka hore caafimaadkaaga dahabka dollar ha ku bedelanin. ee ka fiirso. nin waxaa la sheegaya aad u shaqay jiray oo bishii hal maalin oo seexa jiraa layidhi, maadaama uu hurdadii iyo wixii iska dhaafay. 2 asbuuc kadib, sanad wuu ku socday, 2 asbuuc kadib wadnaha ayaa istaagay. markii la baarana waxaa la ogaaday ninkan waxa wadnuhu u istaagay oo diabetika iyo cudurrada dhan iyo wax dhan ugu dhaceen oo hal mar jirkiisa dhan u damay. waa jirkii uu hurdo iyo nasasho u diiday intuu lacagta burinayay. lacagtu aakhiro wax kama tarto ee cibaadada wax tarta. lacagtu waxa ay tarto waa kooban tahay. lacagta ha la iska ilaaliyo sida loo isticmaalayo. ma u fiirsato dadka bini'aadanka qof walba waqti ayuu leeyahay oo dhammaado ama uu dhinto. inta aad nooshahay u fiirso. lacag la-aanu markay ku hayso duruufo jiraan, cabaar inta bilig indhaha ka siiso ayaad xal raadinaysaa. laakiin caafimaad darro markay jirto lacaguma gadi karto. waqti xumi markay jirto lacaguma gadi karto. marka si aan hadalka hadda ugu soo gunaanado, anigu kuma lihi lacag iska dhaaf ama lacag ka arar. lacag waa waxa nolosha kala wada, waa waxa adduunyada fududeeya, waa waxa guryaha lagu dhisto, waa waxa cuntada lagu cuno. laakiin ogow qiimaha ay leedahay iyo meesha ay ka xigta lacagtu.
lacagtu waxay kaa caawin kartaa sidaad dhaqaalaha ilmahaaga, gurigaaga, cuntadaada u samaysan lahayd. waxyaaba kaloo badanna kaama caawin karto, waa inaad ogaataa. waa macalinka nolosha, Axmed Isxaaq. intaasaan kusoo gunaanadaynaa maanta. Share and subscribe. Thank you.